oo sabti ah kulamada horyaalka Premier League ama wadanka Ingiriiska. Ciyaartii ugu soo horeysay ayaa ahayd labada kooxood ee Manchester United iyo Everton. Garoonka lagu dheelayay waa garoonka Everton oo ay marti ugu tahay kooxda Manchester United. Tababare Ole Gunnar Solskjaer oo uu saaran yahay culays aad u weyn ayaa kulankan ku soo galay shax adag asigoo isla markaasna kursiga kaydka geliyay Paul Pogba iyo ciyaaryahan Danny van de Beek asigoona dhexdiisa ku soo bilaabay Stoke McTominay iyo ciyaaryahanka la yiraaho Fred iyo sidoo kaleeto Bruno Fernandes oo ka horeeyo. Haddaba labada kooxood ayaa waxa ay ciyaartooda ku soo dhamaatay ciyaar xiiso badneed 3-1 ay ku badisay kooxda Manchester United. Kooxda martida loo ahaa ee Everton ayaana goolka kaga naxsatay daqiiqadii 19aad kadib markuu Bernardi uu u dhaliyay gool. Haddaba kooxda Manchester United ayaa weerar degdeg ah kaga falcelisay goolkaas looga hormaray daqiiqadii 25aad ayaana waxaa goolka barbaraha u dhaliyay ciyaaryahan Bruno Fernandes oo ciyaarta ka dhigay 1-1. weerar badan iyo halgan badan ay gashay kooxda Manchester United ayaana halkaas ku ekaanin daqiiqadii 32aad mar kale Fernandes ayaa dhaliyay goolka labaad ee ciyaarta oo isla kaam hore dhashay. kadib ciyaarta ayaa waxaa lagu kala maray kaam 2-1 ay ku hogaaminayso kooxda Manchester United. si kastaba ha ahaatee kaamkii dambe markii la isku soo noqday ayay kooxda Manchester United sii wadatay bandhigeeda cajiibka ah ayadoona ciyaarta markii ay dhammaartay la soo geliyay saxiixooda cusub ee Edinson Cavani oo dhaliyay galabta goolkiisii ugu horeeyay ee Premier League ah. 3 kulan oo ciyaaray ilaa ay hadda xidigan kooxda PSG kaga soo biiray kooxda Manchester United si fari ah ayaa galabta waxa uu furtay akoonkiisa goolasha. ciyaartan waxyaabaha ka calaameynay ayaa waxa ahayd in kooxda Manchester United xilli ciyaareedkan ay ku jirto marxalado kala duwan ayadoo kulan laga badinayo kulan barbara galayso macallinkooda Solskjaerna culays weyn uu saarnaa. guushan ay ka gaareen Everton culayskii xoogaa ka qafiifinayso horyaalka kala sareyntiisa. kooxda Everton ayaa hoos kaga soo dhacday kadib kulamo fara badan ay ku naaloonaysa guulo isdaba joog ah. hase yeeshee 3 kulan ee ugu dambeysay ayaa Liverpool iyo macallin Carlo Ancelotti oo dardar xoog leh ku bilowday horyaalka Premier League guul darooyin xiriir ah dhabarka loo saariyay halkaas ay kaga faa'iideysteen kooxaha Liverpool iyo Southampton oo hadda ka sareeyo halka kooxda Manchester United ay fadhisay kaalinta 15aad ee kala sareynta horyaalka ayadoona hadda madaxa kor u soo qaaday. haddaba waxaan eegi doonaa in macallinka Manchester United Ole Gunnar Solskjaer oo maanta bandhig aad u fiican ay ciyaartoydiisa soo bandhigeen waqtigiisa shaqada loo dheeran doono iyo in uu ku ekaan doono gabagabadii kulankii ugu dambeeyay walow haddii ciyaarta laga badin lahaa aanan la isweydiin lahayn in uu macallinka kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer oo naadiga sii maamuli lahaa oo ay wargeysada intooda badan ay qorayeen in macallinkii laga raacday kooxda Tottenham Bunuji uu diyaarba u ahaa in kulankan wixii ka dambeeyo haddii Ole Gunnar Solskjaer guul muhiim ah uu soo hoyn waayo kooxda kana soo dhaqaajin waayo kaalinta 15aad uu kursiga macallin Ole Gunnar Solskjaer uu ku fadhiisan doono. haddaba waxaan eegaynaa wixii ka dambeeyo shirka jaraa'id ee ciyaarta markay dhamaato ay ka wada hadli doonaan macallinka. asxaabteena aan jecelnahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeeni faaqidaada ciyaaraha. kooxda Chelsea ayaa ayadana xasuuqday kooxda Sheffield United oo ku soo booqatay garoonka Stamford Bridge ee ay ku dheesho kooxda Chelsea. ciyaartaas oo ku dhamaatay 4-1 oo ay guusha ku raacday kooxda Chelsea. inkastoo Chelsea looga naxsaday gool qaybtii hore ee ciyaarta bilowgiiba ayaa haddana waxay ka bixisay jawaab degdeg ah ayadoo 4 gool ugu bedeshay kooxdii martida ahayd ee Sheffield United. goolkaas oo waqti hore uu dhaliyay ciyaaryahan David Maguire oo goolhaye Mendy ka joojiyay rikood cajiib ah oo dhigan lahaa haddii maanta laga dhalin lahayn gool. laakiin waxaa jawaab degdeg ah ka bixiyay ciyaaryahan Abraham oo dhaliyay goolkiisii afaraad
uu ka dhalinayo kooxda Sheffield United ka hor intii aanu Ben Chilwell ku darin goolka labaad oo ahaa kubad uu meel fog kasoo tuuray Hakim Ziyech, waxaana gool labaad raacsaday ciyaarta saxiixa cusub ee Chelsea. Thiago Silva ayaa gool saddexaad madaxa uga dhaliyay kooxda Chelsea qaybtii labaad, waxaana 2 daqiiqadood oo kaliya kadib goolka afaraad u dhaliyay Timo Werner, iyadoo ciyaartuna kusoo dhamaatay 4-1. Tababare Frank Lampard ayaana hal badal oo kaliya ku sameeyay safkii uu ku ciyaaray kulankii Champions League ee ay kaga hortageen kooxda Rennes, asigoona kayd ka dhigay ciyaaryahan Jorginho, laakiin Chris Wilder ayaa 3 ciyaartoy oo bedelay safkiisa guul darrada lasoo kulmay kulankii ugu dambeeyay ee Man City 1-0 kusoo garaacday kooxda Sheffield United. Ayadana Sheffield United ayaa goolka kaga naxsatay Chelsea intii aanay ciyaartuba kululaanin, waxaana kubad uu dhinaca midig ka keenay Boldog ceeb sii raaciyay ciyaaryahanka Davies. Chelsea ayaa kubadda la wareegtay waxayna ka shaqaysay khadka dhexe iyagoo kubado aan bartilmaameedkooda halin soo geliyay xerada ganaaxa Sheffield United. Daqiiqadii 20aad ayaa ciyaaryahanka kooxda Chelsea ee laga celin layahay kooxda Sheffield United Abraham goolka barbaraha u dhaliyay kadib markii uu kubad ka helay Kovacic oo xerada ganaaxa dhexdeeda u dhinac midig uga dhiibay. Abraham ayaa noqday dilaa saaxiib la ah shabaqa Sheffield United, waxaana 4tii ciyaarood ee ugu dambeeyay ee uu ka hortagay kooxda Sheffield United uu ka dhaliyay 4 gool kaliya. Wolves iyo Nottingham Forest ayuu laacibkani ka dhaliyay goolal ka badan inta uu Sheffield United ka dhaliyay. Daqiiqadii 34aad ayay Chelsea si buuxda ula wareegtay hoggaanka ciyaarta, waxaana gool labaad u dhaliyay saxiixooda cusub ee Ben Chilwell oo goolka uu u qabtay kubad uu meel fog kasoo naqshadeeyay Hakim Ziyech, taas oo uu ku dhaliyay meel taabasho kaliya u baahnayd. Qaybta hore ayaa ciyaarta kusoo dhamaatay 2-1 ay Chelsea hoggaanka la nasatay, waxayna wada hadallo iyo talo la soo wadaageen ciyaartoyda labada kooxoodba macalinayaashooda. Qaybtii labaad markii la isku soo laabtay ayaa saxiixa cusub ee kooxda Chelsea David Silva waxa uu ka dhaliyay goolka saddexaad ee ciyaarta oo 2 daqiiqo kaliya socoto kaamkii dambe. Hase yeeshee goolka afraad ayaa waxaa Chelsea u saxiixay saxiixooda cusub ee Timo Werner oo ciyaarta ka dhigay 4-1, kuna soo dhamaatay ciyaartii 4-1 ay guusha ku raacday kooxda Chelsea. Kooxda Barcelona ee wadanka Isbaanishka ayaa ayadana dheelaysay caawa iyadoo guul gaartay 1 bil muddo laga joogo kadib markii guuldarrooyin iyo bareejooyin isdaba yaallo ay kooxda kusoo jirtay bishii ugu dambeysay ay dheelaysay horyaalka Isbaanishka. Kooxda Barcelona ayaa caawa waxa ay ku badisay 5-2 ciyaar xiiso badneed oy kooxda Real Betis wada ciyaarayeen oy martina ugu ahayd garoonka Camp Nou, xilli Messi uu kursiga kaydka ka soo kacay uu dhaliyay 2 gool isla markaana uu caawiye ka noqday gool kale. Messi ayaa tusay macalinkiisa Ronaldo Koeman inuusan u qalmin kursiga kaydka maadaama Barcelona ay guusha gaartay markii uu garoonka soo galay ciyaaryahan Leo Messi, asigoo ciyaarta wax weyn ka bedelay ciyaarta oo ahayd 1-1 halka Antonio Griezmann kaam hore laga qabtay rigoorada. Guusha ay caawa soo gaartay Barcelona waa guushii ugu horeysay ay muddo bil ah kasoo hoyso horyaalka La Liga ee wadanka Isbaanishka, ayada oo hadda soo gashay kaalin. Dhanka horyaalka Jarmalkana waxaa wada dheelay labada kooxood ee ku xifaaltama ee Borussia Dortmund iyo kooxda Bayern Munich, kulan xiiso badnaa oo ay guusha raacday kooxda Bayern Munich. Inkastoo guusha rafaad badan u martay, haddana kooxda
Jarmalka ayaa meel waxay iska saartay kooxda Borussia Dortmund oo xifaalta weyn uu ka dhaxeeyo. Ciyaartan oo ka dhacday garoonka Signal Iduna Park ee ku dheesho kooxda Borussia Dortmund ayaa ahayd musalsal ay goolasha iyo fursadaha badan heleen labada kooxood. Kooxda horyaalka Jarmalka difaacanaysa ee Bayern Munich ayaana waxa ay la hormartay goolka daqiiqadii 24aad waxaana dhaliyay weeraryahanka reer Poland ee Robert Lewandowski. Ciyaaryahankaas oo kubadda ka helay Gnabry. Si kastaba ha ahaatee goolkaas waxaa diiday VAR oo meesha ka saaray kadib markii ciyaaryahanka jilibkiisa la sheegay inuu ku jiray offside. Ciyaaryahan Marco Reus ayaana goolkii u horeeyay ee ciyaarta furay oo u dhaliyay kooxda Borussia Dortmund kana dhigay ciyaarta 1-0. Kooxda Bayern Munich oo uu ka dhaawacmay ciyaaryahankooda laf-dhabarta u ah ee Kimmich oo jilibka wax ka noqday ayaa waqti badan lumiyay qaybta hore maadaama xoogaa laga dhex daaweynayay garoonka waxaana qaybtii hore ciyaarta lagu kala nastay 1-0 oo hogaanka ku hayso kooxda Borussia Dortmund. hase yeeshee markii la isku soo laabtay ilaa 4 daqiiqo ka bacdi ayaa waxa ay heshay kooxda Bayern Munich goolkeeda barbaraha waxaana u saxiixay ciyaaryahan David Alaba oo xilli ciyaareedkiisii ugu dambeeyay ku qaadanayo Munich. Kubaddaas oo uu ka helay mashiinka qadka dhexe ee Thomas Muller isla markii laga soo laabtay waqtigii nasashada 3 daqiiqadood oo kaliya ciyaarta socotay ayuu Robert Lewandowski hogaanka u dhiibay Bayern Munich. Laakiin goolkan ka hor waxay Dortmund fursado ka lumiyay Erling Haaland oo ku dhawaaday inuu shabaqa taabto daqiiqadii 47aad. Coman ayaa fursad qaali iska dhumiyay daqiiqadii 51aad. Loris Sanya oo badal ku soo galay ayaana goolka saddexaad u dhaliyay kooxda Bayern Munich oo ciyaarta ka dhigay 3-1. hase yeeshee ciyaarta oo gabagaba marayso waqtigana dhammaan rabo ayaa ciyaaryahan Erling Haaland oo u soo celiyay 1 gool oo rajo saasa aysan ka qabin maadaama ciyaartaba dhammaad ay ahayd. sidaas darteed kooxdii Bayern Munich ayaa waxa ay ku badisay 3-1 oo meel iskaga saartay caawa kooxda Borussia Dortmund oo kula xifaaltanto horyaalka Jarmalka.